علمي إسماعيل ليبان علمي بودري الله ونحرسته وحوها أبيه جعلك أمد الصومالية waxaana xuduntiisu ku aasan tahay magaalo xeebeed Berbera ee gobolka Saaxil waxaana si weyn loogu xasuustaa moofadan aan hadda hor taaganahay oo uu ka shaqeyn jiray ninkan garabkayga taagan waa Maxamed Cali Axmed oo ku nool magaalada Berbera Maxamed waxa uu ka cabanaya jacaylkii hore godka u dhigay cilmi boodari oo uu sheegay inuu isagana hore u soo maray isla markaasna gabadhii uu jeclaa ay ku wacad furtay sabab adduun la'aan awgeed waxaana hadda halkan dhigay sida uu ii sheegay inuu sabir iyo casharo ka qaato jacaylkii boodari dilay وانا كان يسوق أرنتاسي كهذا صح شيء كوي واحد جلا قبل ما كان شغالين بدل ما شغال بدل ما نشي كسري لكن ويشوف سجلي ودينا قبلي أنا سكون معنا عم بعمل خير والله لسنو وقت قاسي قرمه هيد وحيد صدق سجاشنكي صدق أفريقيا سجاشنكي إلا عشان سجاشنكي أظن مرهر بالبلاد مركورة ها ما وإحنا ريال جيش مركورة هالجيسات كتير هالجيش كتير مركا هل كان بقى بدرس كبرتين هل كان أسكت براني صح قبل يسحب بيجي شوي قبل حذي هل كي مركا سيك قبل حذا قاب نوعية وحاجة قبل حذي جل العقبة ماشي صباح لما قناصها يتكينوا له حاجة قانوني العقد الدنيا يعني الدنيا ماذا بيجي قبل إني مس مليون بالك قاضي يوم بالله سبيدني يعني كلام هو حيسته هو ما حيسته أنا حبايسين وصاحبي مركا مركا عنده كويس ما يجي أنا كنا ما يجي تاسانا سوي من مركا أنا نقول بيلو نقول كنا ساكت صح حاول دي تاريخ ناس برات الحلم هيد واحد صدق كويس قاشنكي هل كان سكوا براتين صح إما كان حقيقة قبل لي ودقنتي مقالة دقنتي يلا عرض بدون هايستها سيفعنا نبى أنا قبل دي وشقيو نبى يا إما كورسي جيبي شوكا صح سيفعنا حشرة محاكوك اللي فاتك موفضني والله موفضن وانا لا يا مش وشمال وكاي مركا غير كني وحنان لا يا البابدين يا مشى سيفعنا مركا ساسن كنول halkan marka boodada soo xasuusato adna ay qisadaas ku dhacday maxaa dareenta wallahi waxaan dareemay in kaan dhibaato xigli ku dhacday oo aan helayn gurmad iyo xabatoon lahayn tayada dadun baaba waxay ilaahdee tiis bila gurmad bay ku noqotay ka waxlis marka taariikhdan oo kale la muujiyaabay oo la isku soo ururiyo dal isku keeno sifiican gacanta ay dad badan uga faa'iideystaan hore waxaan u maqli jirnay in hees Soomaaliyeed ay tidhaahdo jacayl dhiig ma lagu qoray wali dhuux ma loo shubay taa bedelkeeda Maxamed waxa uu maanta qayb jirkiisa kamid ah ku xardhay magaca gabadhii uu jeclaa waxaana aan weydiiyay sababta uu ugu qoray magaceeda waxaan ku qoray 29 ku qortay ayaan ku qoray waqtiga mid wada joogtay soo way kala marayday waan wada joognay magaalada ay digni sax si fiican ay marka magaceeda ku qortay marka sabab ma ugu qortay waxaan ugu qoray jacayl aad u jecelahay marka waxaan dhageystay heestan talaa jacayl dhiig ma lagu qoray si fiican marka waan u fiirsaday heestaas si waxyaalo badan bay iftiimisay yeetana waxaan siiyay warniyo inta in aad u jeceshay ogaati balad jacaylka dhiigga ku qor intii aad kala tagtay mar dambe ma saratay gabadhii hawan sargnay markaan buu sargnay laakiin ma wada hadallo marna ma ku dareesatay jacaylka inaad wali u qabto ma adigu waxay tiraahdaa hawshaas waa hawl dhamaatay marka carruur soo baxeen meeshii deereed digin anna waan ka baxay aan jiiraahdo waan ku sii jecelay iyo waxaas waan ka noqday gabadhi ninkii qabay bay ku qanacsantay ku qanacsanato والله اسكو نقلا ما ريركاسي رير فيعن الله كدغو صح انا مid khayr qaba Allah siiyo Ahmed Nur Ciise Muhammad magaala xeebeedda jacaylka Berbera Bulsho TV